أود الدعاء إلهي سبحانه وتعالى وحو نوشا جاي سوى الله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هدي أدومدي إيكا ويديان أصحابتها وحي يراهدان إلهي حقون نوجراه إنان وحويدي سنان ربناه مركاسا إلهي كسو جاء وحلو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أشاق وأدوه دوانشاها سدوانشا علمي وإلهي معنا وكو أقها ما شاء جوكتو حالة ذو أقها إلهي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هلكا سوى مركا وكأقبل يا دعاء ذو هدي أقوي ديستان قلبي أو سليم قلبي نظيف وحوالبو هذا إلهي كوي ديستو إلهي وكو سحلايا قصة سوق عضنا مركا قصة المركا لبا نوع أو عبادة إسلا سعطوا كو خلوة قفك إنه قوني لا هذا إلهي سبحانه وتعالى أو عندنا أنا نقين حكمة عبادوينك أقوى وين علوما قاروا حدها عن قفك مؤمنك حافي عن خلوة إنه السماء خلوة مركز سمين يستحوايا إلهي تحسيسا يدون عندنا كل جوجل أو كل جاءته مركز laba qofka qabanaya markaas markuu khilwada yahay oo kaligiis u yahay digri badan oo akhrinaya oo ilaahay ku amaanayo nooc doon dugriga saahaado wixii adkaar ah ma'thuraad ah nabiga laga soo guriyay iyo gacanta kor u taagay ilaahay weydiisanaya wuxuu rabo qisadan waxay ku saabsan tahay iyadoo kooban ayeeyo haysay wiil yar oo agoon ah oo xanuun khatar ah ku dhacay marka maamadaas waa u imaan doonaa laakiin waa qiso cajiib badan oo ah awoodda ducada dadka badana way yareystaan qofka markuu xanuunsado dhakhtarku ku degdegayaa laakiin haddaa xanuunsata ka waran inaad ku degdegto ilaahay subxaana wa tacaala oo og xanuunkaaga oo og in lagugu imtixaanay oo kaa qaadi karo daqiiqad wax ka yar meesha dhakhaatiirta laga yaaba inay ku qaataan sanawaad calaa kulli xaal nin dhakhtar doctor ayshaan la dhahayo oo asal ahaan waddanka bakistaan ka soo jeedo wuxuu safar u aaday martiqaad uu helay oo lagu siinaya hadiyad dawo uu soo saaray cudurada ka mid ah marka wuxuu hore u soo qaatay qalabkiisii iyo dawadiisii oo boorso uu ku wataa diyaaraduu soo koray diyaaraddii intay iyadoo marayso degmo ka mida degmooyinkii waxaa dhacday diyaaraddii hal injina ka halaabay waxay qasab noqotay bilotka u sheegay inuu dejinayo si khatar weyn imaan kartuu kaga hortago diyaaraddii markuu dejiyey degmadaasuu ku dejiyey oo meel airport ahaa isla markii diyaaraddu ka soo baxay isagoo walwalsan sababtoo ah saacado ayaa ka harsan macnaha berito waxaa hadiyaduu qaadan lahaa markaasna waxay ahayd habeen ku dhawaaday ahayd marka qoladii oo meesha airportka wuxuu weydiistay diyaarad geen karto meesha u socday qoftii oo airportka qaybtaas u qaabilsanada waxay ku tiri diyaarad ma u baahnid meesha u socoto waxay ka xigtaa intaasoo saacadood marka haddaad gaari kiraysato waa aadi kartaa wuxuu ku dhaawaa mahadsan tahay gaariyuu kiraystay markaas kadib gaarigii intuu saarnaa oo uu wadaayay waxaa soo da'ay roob xoog badan adduunka ilaaha maamulo diyaaraddaasi injinkeeda ilaahaa sababay inay meeshaasi ku istaagto oo la soo dejiyo haddana hadaladan uu dhex marayo dhan xukunka ilaahaa socdo iyo maamulka ilaahay yudabbiru اlamr wax walbo gacantiisa ku jiraan qofka mu'minka doo intaas rumay qalbigiisa waa dagaaya bini aadan taladaada ma hayo taladaada gacanta ilaahay ku jirtaa isla markii roob xoog badanaa soo da'ay habeenaa la galay wuu ku wareeray khariiduu haystay uu raacayay meeshuu u socday laakiin wuu dhumay markuu u dhumayso u socday marka wuxuu arkay guri keligiisa meel ku yaallo oo guryaha ka baxsan oo guri yar ah cariish yar oo wax faynuus u eg ka daaran guriguu yimid marka wuu dhubay muxuu rabaa in uu helo dad xaga meeshii markuu soo galay
guriguu soo galay, albaabkii u garaacay. hooyo waayeelaa waxay dhahday waa soo geli kartaa, albaabku waa furan yahay. albaabkii kuu soo galay waxaan arkay hooyo waayeel iyo waxaan arkay sariir ag taalo. hooyada waaweel markaasi waa tusbiixsanaysay, digriga akhrinaysay, saasuu dhahay. marka waxay leedahay soo dhowow, marti aad u eg tahay. markaasuu dhahay maku weydiin karaa wax? markaasaa wuxuu yidhi waxay tihi haa, telefoon ma haysataa? markaasaa waxay tihi gurigan guri telefoon leh ama koronto leh makula egyahay? markaasaa wuxuu yidhi mashaakil. markaas tiri isdeji, fariiso, shaaha yaalo, shaah cab, naso, roob badana waa da'ayaa, raashiinna waa yaallaa. markaasaa wuxuu yidhi shaahii iyo raashiinkii ii keentay, kursiga isaga noqotay, wardiya sii waday. wardiya akhrinaysaa iyo duco, waa istaagaysaa, waa tukanaysaa, gacantii kor u taagaysaa. markaasaa markii oo ay dhammaysatay waxaan dhahay waxa ku agjiifo maxay yihiin? waxay dhahday ilmi yar waaye, xanuunkaasaa ku dhacay, wax daweeyo xanuunkaasi ma jiraan. waxaa la ii sheegay dhakhtar la yidhaahdo doctor ayshaan in xanuunkan dawadiisa uu helay, laakiin wuu iga fog yahay. kow, waayeelaan ahay. laba, hooyadiisa iyo aabihiisa way dhinteen, waa agoon. lacagna ma haysto xitaa haddaan meesha aadi lahaa. marka halkaana ilaahay waxaan weydiistay in dawada wiilka ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyo. wuu ooye. marka waxay dhahday maxaa u ooynaysaa? waxay dhahday wuxuu dhahay cudurka aad sheegtay aniga waaye, dhakhtarka dawadiisa helay, doctor ayshaan aniga waaye. diyaarad ducadaada iyo dikrigaaga ee khilwada aa gashay, diyaaraduu ilaahay u soo leexiyey. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inaan soo qaato gaari. ilaahay wuxuu amray roob iyo gugac iyo mugdi xoog badan oo aan ku dhamay. ilaahay wuxuu amray inaan gurigan aan ku soo leexdo. ducadaada awooddeeda raba inaan kuu sheego. intaas kaliya maaha, boorso waxaan wataa oo tusaalooyin daawooyinkaan ku soo qaaday. markaas kadib dhakhtarkii wuu orday, baabuurkuu aaday, boorsiisuu soo qaatay, wiilkii meeshuu ku daweeyey. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.